nidaamka loo sameeyay shidaalka waxaa ka mid ah ilaa iyo 282 block bay Soomaali ay leedahay oo shidaal leh waxa la isku haystaa 3 block kaliya konton block kali ayaa la rabaa in auction lagu sameeyo kontonka block waxa weeyaan block kasta markii saa loo saxiix auctionkiisa intii la qaato ee qola shirkad la wareegto $100 milyan bay miiska dhigaysaa kontonki block marka waxa ka soo baxaysa $5 bilyan Mareykanka $5 bilyan Mareykanka Soomaaliya maanta $5 bilyan iska daayay $2 bilyan kale hadii ay hesho al-shabaabna soo afjari kartaa Soomaaliya oo isku keeni kartaa wax allaale wax dhibaato oo jirto oo dhan xal baa loo heli karaa $5 bilyan markii la yiraahdo markaas wali waxadana waxa la yiri 6 bilood gudaheed waa inay ku bilaabaan qoditaanka drillingka shell bahalkiisa blockskaasi nidaamka la isku dabriday oo shirkadaha adduunka oo dhan bay diyaar u yihiin oo la isku jajabin hayo oo mid badka kale uu leeyahay wax ka fiican baan idin hayaa oo marka auctionka la sameeyo ku soo bixi lahaayeen kontonka block $55 bilyan baa ka soo gelay Soomaaliya markaas waxaan meesha ku jirin waxa la dhahaa corporate social responsibility oo shirkad kasta $5 milyan ee ku isticmaalayso meesha ay ku aadan tahay oo badda kaga aadan tahay oo biriga ah oo Soomaalida ay ka degan tahay meesha iyada blogyahana kontonka waxa weeyaan waa inta Jubbaland iyo u dhaxaysa kaliya Galmudug maxaa Puntland wali lagama sameeynin baaritaankii waa la sameyn doonaa teeda iyadana Somaliland xeebteeda lama sameeynin wali baaritaankii iyadana waa la sameyn doonaa iyadana 200 mid kastana waxa weeyaan 150 nautical miles markay ugu yartahay ayuu badda ka baxsan yahay waa 200 oo kilomitir ka badan hantidii iyo dheeftii iyo wixii ku jiray biriga meesha kuma jirto waxa inta weylisa 30 oil cities ba ka soo bixay sida Aramco cities oo kale oo kan ugu yar $20 milyan $30 milyan lagu isticmaalay bishi waayo 300 qof 3,000 qof baa ka shaqeynaysa riga 200 baa ka shaqeynaysa shift ayaa 14 bir markay ka shaqeeyaan waa inay u tagaan dalxiis meel biriga oo loo hagaajiyo la ilaalinayo dhaqaala ka soo baxa shidaalka markuu ugu yaraado 50% 40% Soomaaliya uu soo gali lahaa wadamaha carabta shidaalka hadda le markay bilaabeen shaqadooda 5% iyo ku bilaabi jireen iyo wax ka sii yar bay ku bilaabi jireen iyo wax yar sar 10 hadda dhow bay Sacuudiga ay 100% Aramco ay la wareegtay waa 67 sano ka dambe laakiin Soomaaliya waxay ka dhul daareysay meel aan cid ka dhul daartay aan jirin markii hore عربت وهايو وحي يجي سوقينا بعد كده سوقينيسا مع القطر ورك الرسمي أنا يعني هيسموه intelligence كقطر السعودية مارتي إمارات كإنه كل الدونين مركز نقطة سوماليا شغال كذي جاس كذي الله صار مركز أنت كده قاعد كيسة الدولة هذا الاسم أي بوبسي سيء وحي يدهد وحي لما بوبسين وحي بعد مدة إن عقد الوقت دبلوني أسباب الدبلوني دينا وحوينا وهالكسو شيء وعننا عن أورنجرني مركز أورنجرني Soomaaliya aan adeeg bay u baahan tahay ragga madaxdeeda oo magaceeda sita dawladnimada laguma wadi karo cabsi laguma wadi karo iyo maartay bamisteri baa lagu wadi karaa dalaalka hindiga oo meeshan jooga ayaa ku wadi karaa inuu customer kana uu farxa kan la soco maya tan alla adeeg bay u baahan tahay wararka aan qabnana waxa weeyaan arinta shidaalka interference fasaad maxay ahayd in lagu giiro waxyaabo fara badan oo ay wadaan dadkii carabta ah imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Qatar hadda aniga aan warkeeda hay inay kamid ay tahay iyo wax la mid ah inay wali ay systemka Soomaaliya inuu talaabadiisa qaado ay diyaar u ahayn ragga meesha jooga marka iyada hadday talaabada adag qaadi karin oo alla adeegeedii geesnimadeeda loo dhiman hay maalin kasta ay qabin meesha waxa ka soo bixi doona sawir ka duwan sawirkii markii hore aan iska dhaadhicin waxaa caddaatay oo dhab noqotay shir stakeholders oo dhan baa lagu sameyn lahaa oo fiscal policy cashuurta iyo nidaamka shidaalka iyo waxaasoo dhanbu baarlamaanka Soomaaliya dadka ka shaqeeya maxay wasaaradda petroleumka xisaabo kale oo fara badan oo laga dhaadhicin lahaa oo shirkadda Shell
ee ku iclaanisay inay iyada ee kharajkeeda dhanba ay bixin doonto laakiin meel ammaan ah oo Soomaaliya u dhow in lagu qabto oo lagu tashtay in Arsaba lagu qabto hotel ka mid Arsaba laakiin dowladda Itoobiya nin kale oo ku shaqaynaya jirin Soomaali kaliya u taal shirka asaga waa la cancel gareeyay wadagaso shirka asaga waa la cancel gareeyay shir kale ku xigay oo ahaa second round of the bid marka la bilaabo bidki roundkiisii oo shirkadii isku tagaan meesha la yiraahdo Istanbul asagana waa la cancel gareeyay shir kale oo conference kale oo saddexaad baa jiray oo Houston in lagu qabto ahaa asagana oo bishan hadda anaga naga maxay bishan afraad ay ahaan lahayd waqti ay ka noqoto asagana ma dhici doono saan u baahanahay inaan aad iyo aad aan ugu hambaliyo u baahanahay waxa weeyaan 3 qof mise 4 qof oo Soomaali ah oo aqoontooda aanan caadi ahayn ayaa jiraan oo ka shaqeeyay arintan batroolka Soomaaliya meelo badan ka soo shaqeeyay oo ka soo shaqeeyay batroolka maxay Ciraaq oo ka soo shaqeeyay Sacuudiga oo ka soo shaqeeyay maxay ahayd ka soo shaqeeyaan barka mid Norway meelo badan ka soo shaqeeyay baa jirta nin lawyer oo gas and law waxa weey gas and petroleum law wax la dhaha jira oo takhasus gooni ah oo aniga faaraxan kula hadlay maadaama aan lawyer ahay aan ogahay maxaa aniga ma artay arrimaha ku dhex jiray ay la u sameeyay baa jira nimankii saddexda iyaga ahaabo wararka saan ku maqleena xilkii ay hayeen oo ka soo shaqeeyeen waa laga fariisiyay dad kala meesha la soo geliyay على الأقل صدق كمية مد بأنا ولي لقى فلسطين كان اللب كنت أجني حتى